Assalaamu calaykum. Ku soo dhowaada dhammaantiin mar kale casharadaydii taxanaha ahaa ee barashada luqadda Jarmalka ee ardayda beginnerska ah ama bilaabaysa barashada luqadda Jarmalka. Lektion 25 casharkeena 25aad waxaynu ku soo barannay casharkeennii u dambeeyey maxay yihiin modal verbsku. waxaynan ku baran doonaa casharkan modal verbka u horeeya oo ah müssen oo macnaheeduna yahay waa in amba wixii qasab kugu ah in aad qabatid ayaa loo isticmaalaa modal verbka müssen. haddaba waxaynu casharkan ku baran doonaa kow tusaalayaal ku saabsan modal verbka müssen iyo booska uu jumladda kaga jiro ama ka geli karo. laba waxaa kaloo aynu ku baran doonaa müssen sida loo isticmaalo ee loo adeegsado. haddaba aynu bilowno. Ich muss heute zu Hause bleiben. waa inaan maanta guriga joogaa. Abdi muss immer früh aufstehen. Abdi waa in uu mar walba xilli hore kacaa. sida aad halkanba ka aragtaan modal verbka ku jira labada jumladoodba waa muss wuxuuna ku jiraa booska labaad. verbkii caadiga ahaa ee jumladuna wuxuu maray halka ugu dambaysa sida idinka muuqata bleiben iyo aufstehen. aynu eegna tusaalayaashan kale waxayna la mid yihiin sida aan iminka ku soo sharaxaynay halka hore. Ich muss Deutsch lernen. waa in aan Deutsch bartaa. Du musst Deutsch lernen. waa in aad barataa Deutsch. Er muss Deutsch lernen. isagu waa in uu Deutsch bartaa. waad arki kartaan halka uu kaga jiro modal verbka muss jumladda. markaad fii fragan isticmaalaysidna aad su-aal ahaan ku weydiinaysid waxaad ku bilaabaysaa wann musst du gehen. waa goorma in aad tagtid. haddii aad su-aal caadi ah modal verbka ku horreysiinaysidna waa in aad ku horreysiisaa modal verbka laftiisa. müssen Sie morgen arbeiten. ma in aad shaqaysaa berri. müssen als Vollverb. modal verbka müssen waad u isticmaali kartaa verbka keli ah ee jumladda ku jira. tusaale ahaan ich muss jetzt nach Hause. waa in aan iminka guriga tagaa. sida halkaa idinka muuqata verbka keli ah ee ku jira jumladdu waa modal verbka muss. Verwendung von müssen. isticmaalka müssen. haddaba müssen laba shay ayaad u isticmaali kartaa. midi waa amar waad u isticmaali kartaa. talabaadna baahi waad u isticmaali kartaa. waxaad u baahan tahay. haddaba aynu ka bilowno markaad u isticmaalayso als Befehl amar. Du musst jetzt dein Zimmer aufräumen. aan ku celiyo mar kale. jetzt dein Zimmer aufräumen. waa in aad nadiifisaa qolkaaga. waa marka aad wax amrisid ama aad qofka leedahay waxa waa inaad samaysaa. tusaalaha labaad iyo die Pizza essen. aan ku celiyo mar kale. ihr musst die Pizza essen. waa in aad cuntaan biisada. tusaalaha saddexaad du musst sofort ins Bett. waa in aad isla iminka sariirta tagtaa.
aan ku celiyo mar kale. Du musst sofort ins Bett. Haddaba aynu eegno alles Notwendigkeit. Baahi. Marka aad baahi u isticmaalaysid ama waxaad u baahan tahay. Mohammed muss in die Schule gehen. Mohammed waa in uu tagaa iskuulka. Aan ku celiyo mar kale. Mohammed muss in die Schule gehen. Tusaalaha labaad. Ich muss für meine Arbeit Deutsch lernen. Aan ku celiyo mar kale. Ich muss für meine Arbeit Deutsch lernen. Waa in aan shaqadayda Deutsch u bartaa. Waa waxaad u baahan tahay. Aynu eegno tusaalaha xiga. Wir müssen heute Deutsch lernen. Waa inaan maanta Deutsch baranaa. Aan ku celiyo mar kale. Wir müssen heute Deutsch lernen. Waa inaan maanta Deutsch baranaa. Waa waxaad u baahan tihiin inaad barataan. Tusaalaha xiga. Ich muss mehr Deutsch sprechen. Aan ku celiyo mar kale. Ich muss mehr Deutsch sprechen. Waa in aan Deutsch badan ku hadlaa. Haddaba aynu barana sida loo conjugate gareeyo modal verbka müssen. Aynu ka bilowno. Ich muss. Anigu waa in aan. Du musst. Adigu waa inaad. Sie muss. Isaga ama iyadu waa in ay. Wir müssen. Inagu waa in aan. Ihr müsst. Idinku waa in aad. Sie müssen. Adigu waa in aad. Sie müssen. Iyagu waa in ay. Danke. Mahadsanid. Waad ku mahadsan tahay intaad i dhegaysatay ee aad i daawatay. Waan rajaynayaa in aad dhammaantiin wax badan ka wada fahanteen casharka. Haddii aad casharka ka heshay, fadlan sheer garay oo la wadaaga asxaabtaada iyaguna jecel in ay bartaan luqadda Jarmalka. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan subscribe garee si aad ula socotid casharro kale oo fara badan.